Confidence-ka ama kalsoonidu waa waxyaabaha qofka noloshiisa ugu muhiimsan. Dadka kalsoonida leh iyo dadka aan kalsoonida lahayna waxyaabo badan bay ku kala duwan yihiin. Dadka marka ayagu isku kalsoon way og yihiin marka la yiraahdo no. Saanay dadku advantage uga qaadanin ama aanay maaragtay dadku u dulmiin iyaga way yaqaanaan waxa odhanayaan lumaya. Waa dad markasta si positive u fikira. Dadka iyagu isku kalsoon horumarka uu qof gaadho ama ay garanayaan ama aanay garanayn kama xumaadaan. Iyagu niyadda u dhisaa oo hebelba hadduu gaadho waan gaadhayaa. Yacni siyaabo kale u fikiraan aan ahayn inay qofka ku xumeeyaan ama qofka la coloobaan. Qofka isku kalsoon maaha qof si fudud looga cadhaysin karo. Waxyaabo badan laga yaabo inuu qof cadho u qaato. Laakiin qofka isku kalsooni ma cadhoodo. Qof markuu kalsooni leeyahay go'aamadiisa wuu qaataa oo si geesinimo ah buu u qaataa. Waa dad si clear u hadla, si cad bay u hadlaan. Waxay xoogga saaraan waxay ku fiican yihiin iyagu. Ma joojiyaan wax akhris, ma joojiyaan waxbarasho, ma joojiya. Yacni waa dad aad iyo aad maaragtay cilmi kororsiga iyo waxa u jecel. Kalsoonidaasi waxaa ka imanaysaa inuu qofku isagu isku qanacsan yahay. Inuu qofku isagu is yaqaano. Inuu yahay qof aan isagu been isu sheegin. Inuu yahay qof isagu hawlihiisa iska qabsado. Marka qofku is garanayo isagu aanu been isu sheegayn. Dadka kalena aanu waxba uga baahnayn aan ahayn wanaag. Haddii ay wax kala yimaadaanna uu waddadiisa ka bixi karo ayay ka timaadaa kalsoonidu. Waa qof isagu siqa, waa qof isagu comfortable isku ah, waa qof isagu is jecel, waa qof isagu is aaminay.